Assalaamu calaykum. Ku soo dhawow kanaalka Wadani Show. Fadlan haddii aan ugu cusub tahay subscribe tahay ilaaw. Caawa waxa uu ku saabsan yahay casharkeenu sidii aad uga hortagi lahayd in lagula isticmaalo WhatsApp-kaaga gaarka ah. Inta aanan casharka u guda gelin, waxaan ku siin doonaa laba talo oo muhiim ah. Talada koowaad, ilaasho telefoonkaaga. Talada labaadna, furo sirad adag ku xiro telefoonkaaga. La'aalla haddii telefoonkaaga gacanta lagu dhigo si aan lagulaba isticmaalinba. Haddaba casharkeena aan guda galno. Talaabada koowaad waxa weeye markii aad WhatsApp-kaaga set up gareynaysay ama aad install gareysanaysay ama aad telefoonkaaga WhatsApp-kaaga hagaajisanaysay, waxa lagu soo diray code-kan hortaada yaalla. Code-kan hortaada yaalla waxa waaye waa code ka kooban 6 lambar oo aad WhatsApp-kaaga gashatay oo lagu soo diray. Haddii aadan kaas helin WhatsApp maba samaysateen. Code-kaas waa loo isticmaali karaa in lagugula isticmaalo WhatsApp-kaaga. WhatsApp lambarkaagana waa lagu samaysan karaa WhatsApp. Saasaan lagula soconayo xogtaada. Step-ka koowaad oo aad isku ilaalin kartid code-kaas haddii uu telefoonkaaga ku jiro, message-kaaga ku jiro, fadlan iska delete garay si aan loo helin. Step-ka labaad oo aan marayno waxa waaye haddii aad isticmaashid WhatsApp web ama WhatsApp-kaaga uu ku jiro computer-kaaga, fadlan computer-kaaga haddaad ku isticmaashid waxaad samaynaysaa marka aad ka bogatid oo xogtaada dhamaysatid iska saar. Qaabkee isaga saaraysaa marka aad ku ogaanaysaa in WhatsApp ku xiran yahay computer-kaaga? Waxaad tegaysaa 3 dhibcood, kadib waxaad ku dhufanaysaa WhatsApp web. Hadda computer-kaaga ayaa ku xiran, waana ku isticmaalaa. Marka si aad uga hortagtid in lagula isticmaalo, haba ku ilaawinba log out mar kasta. Waa step-ka labaad. Sidaas uu kaga baxay Soomaaliya nawal waa ku jiri. Kaas waa step-ka labaad. Step-ka saddexaad waxa weeye telefoonkaaga waxaa ku jira file la yiraahdo WhatsApp. File-kan WhatsApp-ka la yiraahdo waa loo isticmaali karaa in lagu jabsado WhatsApp-kaaga. Waxa uu ku dhex jiraa file-ka ay ku qoran tahay WhatsApp oo xogta WhatsApp oo dhan ay tagto oo lagu kaydiyo. Microsoft halkaas waxa ku sii jira file kale oo la yiraahdo gudaha loo sii gelaya file kale oo la yiraahdo my files. My files-kaas waa loo isticmaali karaa, laakiin step-kan waa adag yahay oo wuxuu u baahan yahay qofku inuu leeyahay xeelad wax jabineed ama aqoon jabineed inuu leeyahay oo uu ku jabsan karo. Xogaa uu adag yahay, laakiin adigu markasta telefoonkaaga ilaasho. Haddii file-ka la helo waa la jabsan karaa. Steps-ka kale oo aan hore u soo sheegay iyagana waa lagu jabsan karaa. Waa mahadsantihiin. Caawa casharkeen intaas uu ku egyahay. Fadlan haddii aan ugu cusub tahay casharkan aad ka heshay, subscribe-ta inoo saar, like-ta iyo comment-tigana ha ilaawin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.